uu bamba ku weeraray qoyskiisa oo ku noolaa xaafadda Cali Kamiin ee degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir kadib markay hadal isku maandhaafeen. dhimashada uu sababteeda lahaa askarigaasi oo la sheegay inuu cabsanaa ayaa waxaa ku dhintay hooyadii dhashay. tani waa dhacdo xanuun badan oo ka dhacday isla gudaha magaalada Muqdisho. askari ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya kuwa federaalka Soomaaliya ayaa hooyadii iyo carruurtiisii iyo reerkiisii ku dilay bambo kaasoo halkay joogeen ama guriga ka deganayeen xaafad ka tirsan Wardhiigley ku dilay hooyadii iyo cunug yar oo dhalay iyo xaaskiisii. haddaba dhacdadan ayaa mid xanuun badan noqotay taasoo gilgishay baraha bulshada labadii saac ugu dambeysay taasoo barta Facebook dadku saa ugu qaadadhigeen. haddaba saaxiibayaal muuqaal iyo xogtiisa wata ayaa niiga soo diyaariyay saaxiibayaal. ugu horeyn halkan waa channelka xog bixinta wararka. haddaad nagu cusubtay saaxiib subscribe noo saar gambaleekana ku dhufo si ay kuu soo gaadhaan muuqaaladeeda iyo barnaamijyada kuwan ka dambeeya. haddaba xogta oo dhammaystiran askarigan dilay cunugiisa iyo hooyadii. runtii dhacdadan ayaa noqotay mid dadka ku dhaqan guud ahaan magaalada Muqdisho ilaa agagaarkeeda ay runtii aad uga naxaan markii warku soo gaaray. xabaara 10 habeenimo ee xalay ayaa ninkan isagoo malaa cabsan sida warbaahinta madaxa bannaan ay sheegtay waxa uu yara cabsanaa xagga darooga ama sida loo yaqaan khamri isagoo qofka aan dhameystirnayn ee caafimaadkiisa taamka qaba runtii aanay sabab u noqoneen inuu mustaqbalkiisa iyo hooyadii ifka keentay ee hooyadii macaan uu ifka ka kaxeeyo taasoo runtii noqon karta damiirkiisa inuu diidayso qofka runtii caadiga maskaxdiisa tahay laakiinse qofku markuu darooga cabo runtii damiirkiisa. sidoo kale askarigan dilka u geystay familkiisa iyo hooyadii iyo carruurta oo dhalay ayaa runtii isu dhacsanaayeen xaaskiisa kadib markii khilaaf soo dhaxgalay isaga iyo ooridiisa isla markaana uu isagoo cabsan uu guriga ka soo noqday isagoo gurigaas ay joogaan hooyadii iyo carruurtiisa iyo gabadhiisii. sidaas darteedna uu bamba ku tuuray oo halkaas ay ku geeriyotay hooyadii dhashay isaga. xagga kale isaga ayaa hal cunug uu dhalay ka geeriyooday sidoo kale xaaskiisa ayaa isaguna dhaawaca oo dhakhtar ka mid ah dhakhaatiirta ugu waaweyn magaalada Muqdisho lagu hayaa isla waqti xaadirkan. sidoo kale dilka soo gaaray dhaawaca uu familkiisa marka laga timaado sidoo kale waxa ku dhintay 6 ruux oo ka mid ah xaafadihi ama agagaarkii u dhawaa ee la jaarka ah isaga. sidoo kale dhimashada marka laga yimaado dhaawaca ayaa tiro guud ahaan lagu qiyaasay ilaa 15 ruux runtii dhaawaca laakiinse waxa lagu dabeebayaa oo imanka dhaawaca lagula tacaalaya cisbitaalka magaalada Jasiira. haddaba muuqaalka ayaa xagga hore nii soo dhigi doonaa saaxiibayaal. haddaba halkan waa channelka xog bixinta wararka. haddaad nagu cusubtay saaxiib subscribe noo saar gambaleekana ku dhufo muuqaalkeenana like saar waad ku mahadsantahay jaanqaadkaaga saaxiib.